Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahaa Ikraam Cadaawe. Waxaan ahay qof oo la shaqeyso dadka cudurrada maskaxda ka tabanayaan iyo cudurrada oo qabatiinka sida daroogada iyo khamriga. 8 sano aan la shaqeynayay waxaan populationkaasita waxaan dareemay inay communityga Soomaalida aad iyo aad ugu baahan tahay education dhinaca oo caafimaadka maskaxda. So waxaan jeclaaday inaan channelkan aan furay si aan uga hadlo mowduucyaal kala duwan oo la socodsiinaya dadka Soomaalida in cudurrada maskaxda iyo waxay yihiin iyo wixii laga qaban karo. So waxaan rajeynaa channelkanito inuu dadka Soomaalideed ka faa'iidaystaan oo ana Ilaahay sadaqa jaariya igaga dhigo mowduucyaalka insha Allah oo aan ka hadli doono. Of course waxay kamid yihiin cudurrada maskaxda iyo waxay sabab u ah iyo waxa laga qaban karo. Waxaan kaloo ka hadli doonaa cudurrada ku saabsan qofka sida oo horumarka qofka iyo waxyaabaha oo hor istaagi karo qofka horumarkiisa, farxadiisa iyo happiness-kiisa iyo self-care siday naftaada ugu dadaashaa, kalsoonida nafta. Waxaan kaloo ka hadlaynaa cudurrada oo ku saabsan parenting. So aad iyo aad u adag tahay markii ilmo lagu korsanaayo wadan oo waxa wadamada galbeedka ilmo muslimiin markii la korinayo waa dhib badan tahay. So waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka ee ilmaha muslimka la kulmaan iyo waalidka waxay ka qaban karaan. Waxaan rajeynaa channelkayga inuu idin faa'iideeyo. And please subscribe, la share garay, la wadaag dadkaaga iyo ehelkaaga iyo saaxiibadaada. And wixii comment qabtidna nala soo socodsiin. Waa mahadsantihiin iyo waan isku dhigna.